sanadkan ها marka walaalo aniga go'aansaday inaan fankii gabi ahaanba ka baxo ana isu garan waayay markii horena cidigu may qasbin imikana ana sidaa jecelaystay inaan ka baxo dadku waxay isweydiinayaan xamda maxaa ku kalifay ma kooxdii bay ka baxday oo waxay gelaysaa koox kale mise guud ahaanba fankii wixii la oran jiray oo dhan ay isaga baxday xamdi may walaalo kamaan bixin kooxdii oo kaliya ama xidigaha geeska kooxdii aan kamid ka ahaa ilaa maalintan fanka bilaabay ilaa waqti xaadirka aan iyaga kamid ahaayoon ku jiray kamaan bixin fanka gabi ahaantii baan ka baxay oon caawa halkan ka sheegaya Soomaali meel kastoo joogtaan u sheegaya marka fankii baan ka baxay walaalo waa hagaag heerka fanka ee waqtigan xamdaay maxaad ku qiimeyn lahayd wallahi sagalay fanka heerkan maanta aan joogno ama fanaaniin ahaan la joogo haddaan qiimeeyo markaan fanka soo galayay iyo maanta markii aan guda galay dhowrkaas saneen ku jiray horta different weeyaan weyno balaaran markaan soo galayay aad buu ila qurux badnaa wax baan ku hamiyay wax wanaagsan laakiin sidii way aad magac baana fan Soomaali laga dhaxlaa oo maanta xamda queen ilmaha yar labada jirkaaye ama yacni madaxa la kacay ayaa garanaya magac baan ka dhaxlay aan oran karaa xamda queen marka walaalo waxaan ku qiyaasi la wallahi dad badan oo waxa jira aniga sideedoo kala caawaan ama niyada ku haya qofba marun buu jeclaada ama fanka gala ha ilaahay soo hadeeya waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo daa'ir anigoo dhalinyara miirkayga qaba inaan caawo ilaahay gu guuleeyay inaan ka toobad keeno ama ku dhawaaqo ama social media ka sheego inaan ka baxay aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waan ugu mahadinaya waa hagaag xamda fanka sidiisaba maxaa laga dhaxlaa ma laga taajiraa horta fanka gabigiisa sagalay wad mahadsantay walaalo kolley qofku fanaan haduu yahay ma fanka Soomaalida mise dadka caalamka aynaan hiigsan karin fanka Soomaalida magac ayaa laga dhaxlaa laakiin ma laga ma dhaxlo waxaan tiyo oo laga sameystaan ma jirto laakiin magac baa laga dhaxlaa haday noqoto fanaaniintii naga horeeyay waa bari haday noqoto qaar ka sii horeeyay